naftaada la hadlo dheh naf yahay geeridu si lama filaan u timaada ma waxa doonaysaa adoo waxan ku dhex jira si lama filaan inaad u dhimato hebel waa dhintay haddaynu soo aasnay heblaaya waa dhimatay hebel waa dhintay hebel waa dhintay dadka inta xabaasha loo sidee lagu tukanaya janaasada miyaadan u jeedin miyaadan ogeyn geeridu inay tahay ballan aad ka mid tahay nafaha ilaahay ballanta u qaaday inay dhimanayaan inuu qabrigu noqonayo gurigii aad ku hoyan lahayd oo kan ka baxayso miyaadan ogeyn in ciidu gogolku noqonayso maanta furshaan ama haddii aad leedahay qadiifado iyo barkimo iyo go'yaal iyo aqal siraadan iyo waxbaad jiiftaayo joogtaaye in berito ciida lagu gogli doono oo ciida seexan doonto ma ogtahay naf yahay jidhkaagu dirxigu inuu cuni doono ood qurmi doonto dilaaci doonto oo jidhkaaga tin iyo cirib dirxigu saa u mudmuudsan doono sow isma ogid naf yahay miyaadan ka cabsanayn geeridu inay kuu timaado adigoo macsiyo ku dhex jira oo dembi dhexda kaga dhex jira miyay ku anfacaysaa markaasi shallayto iyo qoobamo aad shallayto oo hinaad ooydo iyo murugo aad murugooto xilligaasi wax buu ku taraya naf yahay maxaad aakhiro uga sii jeedaa hadaa isla hadlayso wacdinaya u soo jeeso daarta aakhiro iyo camalkeeda adduunyada tan baas ka soo jeeso ilaahay iyo diintiisa iyo khayrka u soo jeeso canaanta nafta iyo cabsigelinta iyo wax u sheegistu waxyaabaha waxa weeye nafta lagu rabeeyay dembiga laga saaro